Assalaamu calaykum dhammaan waan isalaamay. Hore waxaan ila wadaagay video ah 7 koorso oo muhiim ah kuwaasoo waxa weeyaan runtii ay bixiso jaamacadda Harvard barnaamijkeeda koorsigeeda caanka ee weyn ee la yiraahdo CS50 ayna badanaaba kusoo bandhigto qaab online oo website-ka ay dhigas. Marka maanta waxaan ila wadaagayaa ilaa 3 koorso ugu horeeya baan jeclaystay inaan ila wadaago. Haddiinu ka bilowno koorsooyinka waa kan linkiga halkan aan inoo soo wada dhigay dhammaantood. Koorsada koowaad haddaynu ku dhufano waa kan koorsada koowaad waxaa la yiraahdaa Introduction to Computer Science. Waa koorsada aynu ka bilaabi doono. Koorsada information-keeda hore aan ila wadaagay inuu 11 week yahay. Week walbana laga rabo 10 ilaa 20 saacadood inta u dhaxaysa inaad gelisid. Price cash certificate-keeduna inta uu yahay koorsiguna laakiinse bilaash yahay. Markaasee koorsadan si bilaash ugu apply gareyn kartaa ama aad u baran kartaa. Qodobka koowaad waxa weeye halkan aad tegaysaa ay ku qoran tahay enroll today markaad ku dhufatid. Koorsada information-keeda oo dhan waa kan halkan aad ka wada akhrisan kartaa iyadoo information-keedu 100%. Marka anagu muhiimaddu waxay tahay waqti badan ku bixin mayno kaliya qaabka loo galo iyo waxay ka kooban tahay waxaas oo dhan inaan isla aragno. Mar labaad waxaad taabanaysaa qaybta ay ku qoran tahay enroll oo halka kaaga muuqata. Go to courses baan oranaynaa. Marka labadan qaybood baa kusoo baxaya. Qaybta waxa weeyaan waa certificate-ka inaad qaadatid. Marka almost markaad certificate-ka qaadanaysid markaad koorsadan dhamaystid baad certificate-ka dalbanaysaa. Upgrade now buu ku oranayaa. Markaad koorsada access gareynaysid ama waxa weeye qaadanaysidna qaybtan continue baad qaadanaysaa oo koorsadu waa free laakiin certificate-ka maxay tahay $219 oo kaliya. Marka qaybtan continuous baad ku dhufanaysaa. Marka si rasmi ah marka ugu horeysa waxaanu arki doonaa laba qaybood ay u kala qaybiyeen iyo labada qaybood bay u qaybiyeen. Qayb waxa weeye waa 2023 oo lis bay yiraahdeen. Qaybna waa 24. Maxay ku kala duwan yihiin haddaynu hoos socono week koowaad inta qaadanaysaa, week labaad C baad qaadanaysaa, week saddexaad array, week afraad waxa saddexaad waxaad qaadanaysaa algorithm. Marka waxa jira week 0 week ay dhaxaan oo 0 ka bilaabaan. Week afraad waxaad qaadanaysaa memory, data structure, Python iyo sidoo kale SQL. Week xiga oo 7 ah. Week 8 waxaad qaadanaysaa HTML, CSS iyo JavaScript. Week 9aad Flask waxa la yiraahdo qaadanaysaa. Week u dambeeyana waxaad qaadanaysaa Emojin iyo cyber security oo iyaduna la socota. Marka inta markaad qaadatid waxa weeye waa marka waa 2023 marka waa old waa casharadii hore. Casharada hadda cusub maxay ku kala duwan yihiin kaliya waxay ku kala duwan yihiin wax kale maahan halkii Emojin linkii laga saaray waxa lagu soo bedelay cyber security oo ka afraad. Marka week walba markaad ku dhufatid hadda week koowaad markaad ku dhufatid casharkaad qaadanaysaa waad raacanaysaa kadibna sidaas automatically la soconaysaa casharadaada. Marka kan waa koorsada koowaad. Koorsada labaad haddaynu iyadana tijaabino waa kan linkigeedu waxa weeye waa data science. Marka waa kan introduction to data science with Python. Waa koorsada labaad aan ila wadaagay. Iyadana tabti oo kala aad samaynaysaa oo maxaad samaynaysaa information-keeda waa kan waxa laga rabaa adigu 8 week inaad qaadatid. Week walbana 3 ilaa 4 saacadood gelisid. Marka tabti oo kala baad samaynaysaa markaad koorsadan rabtid inaad qaadatid. Waxaad oranaysaa enroll today. Marka waa kan halkan aad markaa oranaysaa enroll. Marka waa kan tabti oo kale kala saaraysaa. Course certificate-keedu waa 200 iyo waxa weeyaan 99 halka ay free tahay koorsada. Marka continuous bay leenahay. Si koorsadeena aynu gudubno aynu aragno chapterada iyo waxa lagu bixinayo. Start course waa taaban kartaa laakiin marka hore waxa muhiim ah inaynu eegno koorsadan iyo waxa ay ku baxayso iyo waxa muhiimka ah ay baalkeenayso. Marka koowaad introduction baa loo bixinayaa. Marka labaad waxa weeye linear regression, multiple and polynomial regression. Sidoo kale intaas waxyaalood baa lagu bixinayaa classification, logic and regression. Section weeyaan marka sectionadaas waxa weeye waa section-ka ilaa waxa weeyaan 8 section ilaa 9 section bay iska tahay. Markaad ku dhufatid kan koowaad introduction-ka intaas la qaadanayaa Soomaali garan. Inta marka la qaato section-ka koowaad intaas la qaadanayaa almost muhiim ah oo aad waxa weeyaan qaadanaysaa access gareynaysaa. Marka tabtaas aad wada qaadanaysaa dhammaan waxa weeyaan casharadii oo dhan. Start course waad oran kartaa course-kii si toos kugu bilaabayaan ilaa dhamaad aad intaad dhameynaysid
laakiinse isbuuc walba intaad gelinaysid waqti adaa kala xadaysanaya oo waqti walba waxaa lagaa rabaa inaad siisid isbuuc walba 3 saac ilaa 4 saac inta u dhaxaysa ugu badnaana 4 saac ugu yaraana 3 saac inaad siisid marka almost koorsadana qaabkaas ayaad u raacanaysaa oo aad u daalacanaysaa kadibna aad waxa weeyaan casharada ula soconaysaa dhammaan koorsooyinka kale oo dhan halkan aan kugu soo qoray tabtaasaad u wada qaadanaysaa waqti badan yaanan kaaga lumin dhammaantood linkigaad ku dhufanaysaa kadibna koorsadii markaad aragtid enroll baad oranaysaa kadibna toos baad casharkii waxa weeye daraasadii aad u raacanaysaa marka intaasaan kusoo gabagabeynayaa koorsooyinkaas waxa weeyaan aad bay muhiim u yihiin qof walbana waxaan jeclaan lahaa inuu ka faa'iidaysto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.